sidoo kale wada shaqayntii dhex martay hay'adaha dowladda goboleedyada dadaalkii ballaarnaa ay ku bixiyeen howlwadeennada wasaaradda qorsheynta iyo taageerada saaxiibada Soomaaliya kuwaasoo dhammaantood ayna suurtagal ahayn dhamaystirka qorshaha sidoo kale waxaa kaalin buuxda ka qaatay dhammaan hay'adaha iyo wasaaradaha dowladda federaalka ee waddanka taasoo wada tashiyo dhow la yeelanay wasaarad kasta haddaba si aan u hirgelino qorshahan waxaa muhiim ah inaan la nimaadno dadaalkii hore ka ballaaran kana qoto dheer inaan u midowno dhammaan golayaasha dowladda iyo shacbiga Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxa ay naga sugaysaa in aynu hirgelinno hal qof iyo hal cod doorasho ah talada iyo awoodda iyo karaamada ummadda Soomaaliyeed baa iskale waa inaynu talada shacwinaha Soomaaliyeed dib ugu celinaa madaxweynuhu waxa uu diyaar u yahay ra'iisul wasaaruhuna u yahay ummadda Soomaaliyeed taladeeda inay qaadato iyagu cidii ay rabaan ay doorato haddii aynu tartamayno oo ay dib inoo dooranayaan oo 5 sanadood oo dambe halkii aan gaarsiinay meel ka sii fog aynu gaarsiinayno ummadda Soomaaliyeed bay u taallaa haddii cid kale ay dooranayaan ummadda Soomaaliyeed bay u taallaa laakiin innaga maxaa la inaga rabaa amnigii wax weyn haddaan ka qabanno suurto gelinay maya nuclear inaanu samayno waxa ka dhow inaanu dib u habayno amniga haddaanu suurto gelinay arrimihii bulshada waxbaan ka qaban karnaa dhammaan hay'adaha aan dowliga ahayn oo ay ugu horeeyaan hay'adaha qaramada midoobay kuwaasoo aanu wada shaqayn joogto ah leenahay iyo sidoo kale hay'adaha ka shaqeeya arrimaha horumarka iyo samafalka waxaan ku adkeenayaa ama farayaa inay dib u eegis ku sameeyaan qorshahooda howleed ee sanadlaha ah ayna hubiyaan in qorshaha ay dalka ay ka fulinayaan uu la jaan qaadi karo qorshaha maanta aan ka hadlayno oo ah horumarinta qaranka ee 9aad aynu maanta dah furayno mudanayaal marwooyin sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dhammaan aqoon-yahanada Soomaaliyeed iyo xirfadlayaasha aqoonta durugsan u leh ka shaqaynta hay'adaha dowladda hadday noqoto wasaaradaha wakaaladaha safaaradaha iyo dhammaan xafiisyada dowladda inay muruqooda iyo maskaxdooda iyo khibradahooda ay dalkooda hooyo geliyaan hadday dibad joogaan iyo hadday gudaha joogaan